Qisadani maanta waxay ka bilaabanaysaa wiil yiraahdo Ruby oo ku noolaa Ingiriiska 1991 wuxuuna ka shaqayn jiray meelo dhuxul wuxuuna ku maareyn jiray nolosha hooyadiis iyo aabihiis waxa uu ka helo meeshaas uu ka shaqeeyo. Maalin maalmaha ka mid ah soo lugeynaya wuxuu ku arkay nin beenaala oo dhakhtar isku sheegaya. Dhanka kalena markaa fiirino waxaa jira dhakhtar caan oo lagu magacaabo Ibn Sina oo daaweyn jiray dad diino kala duwan haystaan oo dadkan saaid u bari jiray cilmigiisa dhakhtarnimo. Himinida ka mid ah hooyadiis waxaa ku soo boolay xanuun ayaa ku soo baday si uu jiifin. Wiilkii yarkaa waxa uu u orday dhakhtarkii isku sheegay oo magaalka ku soo arkay oo waqtigiisa degnaa ayuu u orday. Wuxuuna sheegay in waxba laga qaban karin cudurkeeda. Halkaas ayay ku dhimatay. Walaalihiis waxaa kala watay dadkii magaalka ayaa kala watay. Asagana waxay dhaheen waa weyntahay niyo meel iska soo saar. Kadib ninkii beenaalaha oo dhakhtarka uu arkaya uu ka daba ordaya wuxuu leeyahay waan ku raacay aniga meel ma haysti. Ninkii dhakhtarkaan uu iska reebaya oo magaalka ayuu ka tagaya si uu wal ogaaday been inuu sheegay sadarteed. Markii dambe waxaa ku yaasoo gaari gadaashiis ku dhuumanaya kadibna wuxuu leeyahay in kan dad meel kale haysan way israacayaan waxayna soo bandhigayaan xirfadooda been tahay. Markii lagu ogaaday meeshaasna meel kale ayay degayaan wayna ka cararayaan meeshaas lagu qabtay oo lagu arkay luuna. Markii dambe waxay qalayaan wuxuuna ku dhibcinayaan daawo qaldan ayuu ku dhibcinaya ninkana halkaas ayuu ku dhimanayaa. Kadib dadkii magaalka dhan ayaa ogaanaya in ayagu dileen. Kadibna waxaa dhacaya ninkii ayaa meesha lagu dilayaa. Isla markaasna dhakhtar isku sheegay ayaa weynaya indhihi aragiisa. Xataa wuxuu xiran weynaya garkii inuu xirto isku dayaa wuuna xiran weynaya. Loo sheegay dhakhtar Yahuudi oo dadka indhaha u fiiqaya loo sheegay kadibna way aadayaan. Kadib waxaa dhacaysa si qaldan ayaa loo dhaqmay lacagihiisa dhan ayaa laga qaatay. Markaas ka bacdi ayaa indhaha loo fiiqay. Ninkii dhakhtar isku sheegayna dib ayuu aragiisa ka helay. Wiilkii waxaa wareystay oo wiilkii yarka Ruby la dhahay ayaa wareystay wuxuu wareystay dadkii daaweynaya wareystay wuxuuna weydiiyay sida ay u helaan oo u barteen cilmigan oo indha fiiqada. Markaasna wuxuu u sheegay dhakhtar weyn ayaa jira ayaan ka soo bartay oo Muslim ah. Markaas wiilkii Ruby wuxuu isku dayay inuu magaalada ka tago magaalo kale aad ugu raadiyo ninkaas dhakhtarka. Isla markaasna safarley oo meel u socdaan ayuu raacaya kadib wuxuu isku baranayaan gabar aad u qurux badan ayuu meesha ku arkaya ayuuna ku baranayaa. Isla markaasna wuxuu soo galayaa magaalada ayuu soo galayaan waxayna arkayaan dadkii oo la baabiyay. Markaas wuxuu soo dul istaagayaa dad gabar yar oo meel ku oynaysa kadib qoftiisa ayuu la sheekaysanayaa cambaar ku la sheekaysto wuxuu soo socdaan waxay soo gaarayaan meel ayay soo gaarayaan kadib way seexanayaan himin ayaa la gaarayaa xogaa marka la seexdo waxa gabadha ayaa u yeeraysa meel yar isla aadayaan kadib xogaa markay soo sheekaystaan isla markaasna gabadha yar tahay oo meesha ay ka soo helayaan dadka la baabishay ay wax uga sheekeynaysaa qiso ay uga sheekeynaysaa cambaar markay qiso uga sheekayso qisada markay dhamaad marayso wuxuu dhahayaa qisadan inoo dhameystiro waxay dhahaysaa maya qisadan mar kale ayaan dhameystiraya kadibna maalinta ayaa la gaaray safarkiisa ay sii wadayaan kadib bool ayaa ku rugmay dadkiina aad ayuu kala lumayaan qofba meel ayuu laba qof meel ay ka soo dhacayaan meeshiina wax waa la iska arki lahayd kadib meel saxara ay ku soo dhacayaan wax biyaha xitaa way weynayaan. Kadib ninkii Ruby ahaa wuxuu iskaga dhacdhacaa meel iskaga dhacdhacaa markii dambe magaalada ayuu korka arkaya magaalada ayuu iska galayaa. Kadib marka uu gaajo darteed la soo wuxuu kacayaa asoo magaalo jooga oo la daaweynayo. Ninkii daaweynayana ma yaqaan waa dhakhtarkii weynaa laakiin asagu ma yaqaan. Kadib inama ku soo kala furo arkaya wuxuu dhahayaa dhakhtarkaas la ii geeyo. Kadib ninkii odagaa uu iska sheekaysan cambaar ku iska sheekaysto kadib uu soo baxaya. Waxa leeyahay dhakhtarkaas waa la kulmi kartaa. Asna waxa uu soo aadayaa meeshii wax lagu baraayay dadka kadib uu soo fariisanaya waxaan isku barayaa wiil yiraahdo Akimi. Kadib wuxuu soo galayaa waxa soo galaya ninkii daaweynayay mana ogeyn markaas ka bacdi ayuu ogaanayaa ninkii dhakhtarka inuu yahay markaasna uu qoslaya oo isla yaabaya. Kadib wuxuu arkayaa qoftii saaxiibadiisa oo meel safarka isla soo galeen oo nin lacag la aroosaysa markaasuu tifisado qoslo uu ka leexanayaa. Kadib saaxiibkiis ayaa la socda meesha ay arooskeeda ayay imaanayaan kadib ninkii xogaa uu fakaraya markii uu meesha ka soo tagana wuxuu arkayaa gabadh dhiman rabta wuxuuna u keenayaa dhakhtarka weynaa Ibn Sina wuxuu ogaanayaa inuu dabaqalo qaniinay gabadhan kadib way daaweynayaan cambaar ayay ka daba rafaadayaan kadib Ibn Sina asaga ayaa sheekaysan aad ayay